been sheegaysa farxiyo oo ku dhuumanaysa guri ay leedahay gabar baa la caddaa Faadumo oo nin Maryaxaana u dhashay 2 caruur ah oo ku yaal xaafadda California ee Islii waxaan kiiskeeda u gudbinay guddiga beesha ee qaabilsanaa ee Gaaljecel kuwaasoo uu hogaaminayay oo gooye ugu dambayna waxay guddigii maxkamadda u sheegeen inaysan gabadhaasi waxba ka qaban karin arrimaheeda sadarteedna maxkamaddu fasaxan tahay inay go'aan ka qaadato maxkamaddu waxay baaris madax bannaan ku samaysay kiiska Yusuf iyo Farxiya ujeedka aynu hadda isugu yeernay shacabka Soomaaliyeed wuxuu yahay inaan ku dhawaaqno natiijada baaristeena si wiilkii la eedeeyay kiiska loogu tiro ama looga tiro maxkamaddu waxay heshay caddayn muujinaysa inay gobol wadaageen Farxiya Yusuf dhowr jeer si heshiis lagu ahaay waa qaab ay heshiis ku ahaayeen ayay heshay macluumaadkaas maxkamaddu waxay ogaatay inuu Yusuf xiriir joogto la lahaay gabadha ay dhashay Farxiya iyadoo ka duubtay muuqaal muujinaya isagoo xubintiisa taranka tusaya maxkamaddu waxay heshay qoraallo iyo wada hadal dhex maray Farxiya gabadha ay dhashay iyo Yusuf taasi oo abuurtay shak ku saabsan in qofku uur kale gabadhu tahay laakiin wax cadayna oo arrintaasi ku saabsan ee uurka gabadhaasi maxkamadda ma hayso waaya wada hadalka qoraalka WhatsApp-ka waxa uu muujinayaa inay wada seexdeen gabadha yar iyo Yusuf laakiin maxkamadda cadday buuxdo ma hayso inuu isaga uuriyay gabadha baaristii muddada socotay waxay maxkamadda ku ogaatay in Farxiya looga baxay lacag uu Yusuf Sadiiq u ballan qaaday oo ahayd $4,000 baarista ay maxkamaddu samaysay waxay ku ogaatay in hore uu caawiyo Farxiya Cali ay ku eedeysay inuu kufsaday si been abuur ah sida ku cad muuqaalka iyo warbixinta la soo dhigay barta Facebook-ga ee Cabdirasaaq Cali Xasan ama Cabdirasaaq Cali Hiiraan muddadii baarista maxkamadda socotay waxay Farxiya Cali qaaso samaysay aflagaada ay u geysatay Yusuf waxay sidoo kale ka dhuumatay cadaaladda iyo sharciga maxkamaddu waxay caddaynaysaa maanta oo ay taariikhu tahay 13 bisha March sanadka 2025 inuusan Yusuf Sadiiq kufsi u geysan ama xoogin Farxiya Cali Qaasin sidaa daraadeed waxay maxkamaddu ka raali gelinaysaa Yusuf eedeyntii shacab gaaraya 30,000 oo qof hortiisa loogu geystay inuu xoogay haweeneydaas Farxiya ama gabadha ay dhashay ee Axmed Dowlo oo aabawiya maxkamaddu waxa ay labada dhinac ku amraysaa inay joojiyaan faafinta dhaqan xumada been abuurka iyo dacayada maadaama lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan maxkamaddu ugu dambeyn waxay u mahad celinaysaa hay'adaha amniga dalka Kenya waxayna weydiisanaysaa inay tallaabo sharci ka qaadaan haddii labada dhinac midkood jibiyaan go'aanka maxkamadda social media civil court-ga ugu dambeyn waxay maxkamaddu ku celinaysaa in Yusuf Sadiiq ninka la yiraahdo ee beesha Maryaxaan u dhashay uusan kufsan xoog u adeegsan uuraynin uur u lahaynin Farxiya Cali Qaasin waa maasantii leedahay oo been noqotay waa kaa dhaqnay waa kaa tirnay maxkamaddu way kaa raali gelinaysaa labada kiis markaa baarnay adoo maxkamaddu u hogaansatay waxaynu ogaanay labada kiisood ee lagu soo wixii kale toona waa sheegnay laakiin labada kiis ku saabsan kufsi inaad kula kacday oo nin toore ku qabtay oo guri ku balamisay oo ku kufsatay been bay noqotay inaad
haddaad ilaahay kuga samadiida ay uur ku leedahay been bay noqoto uur ma yeelan gabadhin saasaan kugu yeernay marka soo dhow جالسكي مقاضن كرا ومحل كرا يوسف واحد عم بدها هاي مود قلا يا شرقمية مود قلا يوسف داهر الواكنا قلبتنا أنا أدو وهذا هذا اللي يوسف داهر واحد وقعت نندع عدا dad badan baa si xun waxay adoo raali ah maxkamadda qaabka loo hadlayaa ana garanaya ku soco laakiin maxkamadda go'aankeeda ma naqdi kartid saaligelinta laga qaatay iyo in kale maxkamadda maya yani waxaan sheegayay sida yani sidoo igu tilmaamayaan ka hadlayaa yani maxkamadda shaqada ay qabatay aniga aan rabay inaan ka hadlo marka ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa xeelaliyaha maxkamadan ummadda Soomaaliyeed maxkamadda guud aan dhigi karaa ma dhigi kari maxkamad qaas oo waay Tahir Cali Sow ayaan u mahad celinayaa insha Allah waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka kiiskani baaristiisa ka qayb qaatay ayaan u mahad celinayaa baaristiisa ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa xaaskayga Farxiyo Maxamed oo yani markii waxyaabahan beenta la soo shacbiyay banaanka la wareegayay igu dhahday nin adag baa tahay oo geesi ah ummadda Soomaaliyeedna in aanan ka helin doonin ku helin doonta si cadaalad ah kugu helin doonta ayaa kamid ah iguna dhiirigelisay yani in waxa la yiraahdaa horay aan u sii socdo waxna aanan magaranaysaa uqdad ah aanan ka qaadin waxyaabaha aan magaranaysaa aniga la ii geystay waxaan leeyahay xaaskayga aad baan ku jeclahay waad mahadsan tahay sida ii kale insha Allah waxaan kaloo u mahad celinayaa walaashay Shukri oo markii magaalada laga hanjabayo oo waan dilaynaa oo sidaan la yeelayaa oo kana la yeelayaa la dhahayay ugu garab istaagtay hiil ma garanaysaa cid wax ku yeeli doontaa ma jirto maxkamadii cadaaladdaadiina way ku garab taagan yihiin way shaqaynayaan intaas waxaan leeyahay wasiirka maxaa la yiraahdaa al-Cadaala